wada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya General Oduwah oo amar ku bixiyay in dalka laga saaro ciidanka AMISOM maadaama aysan qayb ka ahayn dagaalada ka socda dalka xerada xalane oo amar culus dul dhigay madaxweyne Farmaajo oo taageeray guulaha ciidanka xooga ka soo hooyeen dagaalka ay shabaab kula jiraan iyo Xasan Sheekh oo looga digay inuu dagaal ka fureysto ciirinta caloosho shaqeeyaasha xalane degan ee Midowga Afrika qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeynay General Oduwah ayaa amar ku bixiyay in dalka laga saaro ciidanka AMISOM maadaama aysan qayb ka ahayn dagaalada ka socda gudaha dalkan Soomaaliya taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Oduwah Yuusuf Raage ayaa soo saaray war kulul oo ku socda ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya kuwaas oo hadda la baxay ADMIS 2 sano oo dheeraadana Soomaaliya sii joogaya ciidamadan ayaa lagu eedeynayaa inaysan qayb ka ahayn kacdoonka shacabka ee ka cortay inta badan gobolada dalkan Soomaaliya kaas oo laga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka howlgala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Oduwah Yuusuf Raage ayaa warqad u qoray taliska guud ee ciidamada Midowga Afrika wuxuuna ka dalbaday inay kala cadeeyaan howlahooda iyo shaqada ay u joogaan Soomaaliya iyo sababaha aysan uga soo bixinin difaacyada oo aysan inta badan u caawinaynin ciidankii dadka deegaanka ee dagaalamaya taliyadooda ayaa si weyn uga carooday AMISOM inaysan qayb ka ahayn howlgallada socda wuxuuna ku baaqay in dalka laga saaro taliyaha ayaa sidoo kale fariinta u diray taliska guud ee AMISOM waxa uu ku yiri shaqadiinu waa xaqiijinta amniga Soomaaliya iyo ka qayb qaadashada howlgallada socda ilaa iminka ma jiro dhaqaaq AMISOM ka tirsan oo qayb ka ah howlgallada socda waa maxay caqabadu Midowga Afrika miyaysan rabin in Soomaaliya xasilooni hesho iyo hadallo kale oo cadcad ay ku qoray General Oduwah warqada u diray taliska guud ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed isla warqadaas ayuu Oduwah u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isagoo ka dalbaday in xal degdeg ah laga gaaro ciidanka AMISOM ee deegaanka dalkeena ee lacagaha iska qaata caloosho shaqeeyaalna ah oo aan qayb ka ahayn amniga iyo dagaalada ka soconaya gudaha dalkan Soomaaliya 8 sano ku dhawaad AMISOM ma aysan ka qayb qaadan wax howlgal ah oo shabaab lagula dagaalamayo taasoo ku muujinaysa in qorshahooda kaliya uu yahay inay cunaan madaxa Soomaaliya ay ku qaataan lacago malaayiin dollar ah oo ay habooneyd in lagu bixiyo ciidanka Soomaaliyeed maadaama haddii bogaadin dhiirigelin ay ka helaan dowladooda iyo beesha caalamka ay ciidankaas u afjari karaan dagaalada ka socda gobolada dalkan Soomaaliya taliyadooda ayaa hadda u muuqda inuu qaatay go'aan cad oo la xiriirta waxa laga yeelayo Midowga Afrika iyo sii joogistooda gudaha dalkan Soomaaliya warqadda markii loo diray taliska guud ee ciidanka Midowga Afrika kadib waxaa soo baxday warqad ka timid Africom oo bogaadisay 5 sano kadib howlgallada ka dhanka ah shabaab ee ka cortay gobolada dalkan Soomaaliya ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa bogaadiyay howlgalkii amniga ee ugu weynaa ee muddo 5 sano ah ka dhan al-shabaab sida uu ku xusan war-saxaafadeed ka soo baxay Africom taliska Mareykanka ayaa bayaankooda waxay ku shaaciyeen in howlgalkan ay fuliyeen ciidamada isku dhafka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka hase ahaatee ma aysan cadeyn goobaha ay ka fuliyeen balse wuxuu warkan ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay howlgallo xooggan ka socdeen gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sidoo kale Africom ayaa dhaleeceen weyn dusha ka saaray ciidamada ADMIS ee Midowga Afrika iyaga oo sheegay inay ka gaabiyeen howlgallada socda iyo inay qayb ka noqdaan taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyn ay 10 Sebtembar kula beegsadeen shabaab meel u dhow magaalada Bulaburde ee gobolka Hiiraan kadib markii ay weerareen ciidamada Soomaaliya Africom ayaa sida ku xusan bayaankooda oo nuqul ka mid ah aynu helnay waxaa duqeynta ay dishay 27 qof oo ka tirsan shabaab sida ay sheegeen iyadoo dad shacab ay waxba gaarin weerarkan droonta ah ayaa lagu fuliyay codsi ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay Midowga Africom ee ka howlgala qaaradda Afrika ee ah ciidamada Mareykan ah waxayna sheegeen in howlgalkaas uu ahaa targad la fuliyay oo ay ku guuleysteen balse Africom ayaa si weyn dhigaha calan ugu shubay taliska ADMIS oo ay sheegeen inaysan qayb ka ahayn howlgallada ka socda gudaha dalkan Soomaaliya iyo inay qayb ka noqdaan la dagaalanka al-shabaab waxaa hadda isoo taraya dhaleeceynta xooggan ee loo jeedinayo caloosho shaqeeyaasha Afrikaanka ah ee ku sugan gudaha xalane iyo in ay Soomaaliya u joogaan kaliya
inay lacag ka sameeyaan balse aysan qayb ka ahayn howlgallada nabadeynta ee ka socda gobolada dhexe iyo qayb ka mid ah koonfur galbeed Soomaaliya. Haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socday gobolada dalka, waxaa hadda soo baxaya gobolka Hiiraan inay ka imaanayaan warar tilmaamaya in ciidamada dowladda ay la wareegeen iyo dadka deegaankaba deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi oo ay al-shabaab ku sugnaayeen. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qabsaday deegaano hor leh oo al-shabaab ku sugnaayeen, waxaana la soo warinayaa in meelo kale ay ku sii jeedaan oo howlgalku sii soconayo. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa bogaadiyay guulaha isdaba joogga ah ee ciidamada soo hooyeen labadii isbuuc ee la soo dhaafay. Wasiirka Difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odwaa Yuusuf Raage iyo saraakiil kale ayaa qayb ka ah gulufka dagaal ee lagula jiro shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan. Deegaano ka tirsan gobolkaas oo kala ah Booco iyo Sooman iyo goobo kale oo shabaab ka talinayeen ayaa laga saaray maalmo ka hor iyadoo la isku furay wadada xiriirisa Buulo Burde iyo Beledweyne, waxaana ciidamada ay ku sii jeedaan deegaano hor leh oo shabaab ka joogaan gobolka Hiiraan. Inkastoo howlgalka weli uu socdo, haddana dowladda ayaa sheeganaysa guulo, balse dhanka shabaab weli si cad uguma hadal howlgalladan socda iyo khasaaraha ka gaaray, inkastoo ay sheegaan in dowladdu ay ku hubeysay qabiil diyaarna u yihiin inay la dagaalamaan. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa taageeray guulaha ciidanka xoogga ay soo hooyeen kadib dagaallo ka dhacay gobolada dalka Soomaaliya. Madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerarada ka curtay gobolada dalka ee lagu soo horjeedo dhaqdhaqaaqa al-shabaab, wuxuuna sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal u heelan badbaadinta dadka Soomaaliyeed iyo la dagaalanka waxa uu ku sheegay cadow kusoo duulay diinta iyo dalka Soomaaliyeed. Farmaajo ayaa dhiirigeliyay ciidamada isagoo ku bogaadiyay in howlgalka ay sii wadaan ilaa inta laga saarayo deegaanada kale ee shabaab ee ka joogaan gobolada dalkan Soomaaliya, wuxuuna ku bogaadiyay dowladda in taageero niyad dhis iyo sidoo kale saadba la siiyo ciidamadii dadka deegaanka ee howlgalka wada oo garabkooda la istaago, sida uu sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ugu dambeyn, Xasan Sheekh ayaa looga digay inuu dheeha ka fureysto ceerinta caloosho shaqaysayaasha ku sugan xerada Xalane, waxaana lagu baaqay in degdeg uu go'aan uga qaato ciidamada ADMIS ee ku sugan Xalane iyo in ay kala cadeeyaan mowqifkooda sii joogitaanka Soomaaliya, maadaama Sebtembar 2023 uu ka dhacayo qandaraaska Soomaaliya ay ku joogaan xilli 2 sano loogu daray xilligii Farmaajo, taasoo magacii laga bedelay. Haddana ilaa hadda aysan jirin wax howlgalla ah iyo dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen gudaha dalkan Soomaaliya, kaliyana ay ku eg yihiin difaacyadooda iyo xeryaha ay kaga sugan yihiin min Muqdisho ilaa gobolada dalkan, taasoo hadda Xasan Sheekh looga digayo inuusan iska indhatirin dadkan ku sugan Xalane ee iska dhuuqaya lacagta balse aan qayb ka ahayn xaqiijinta amniga dalkan Soomaaliya. Guud ahaan saaxiibayaal, wanaga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalkan Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.